qaar ka mid ah guddida madaxweyne Silaayo dhawaan u magacaabay abaaraha ka jira Soomaaliland oo iyagu maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanada Sanaag Bari oo ay meelo ka mid ah deeq gaarsiiyeen ayaa shir jaraa'id oo ku weheliyay barasaabka gobolka Sanaag waxay maanta ku qabteen xarunta maamulka magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo halkaas oo ay kaga xog warameen xaaladda abaarta ka jirta deegaanada Sanaag Bari ee ay deeqdan gaarsiiyeen sidoo kalena waxay cid kasto gacan ka geysan kartaa halkaas uga direen baaqiyo ku saabsan in la taageero dadka iyo dunyada gobolka Sanaag ee abaaruhu tabaaleeyeen waxaana xubnahan guddida abaaraha Soomaaliland ka socday iyagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladoodii ka mid ahaa waxa ku nool xoolaha ugu badan ee Soomaaliland ayaa ku nool gobolka maadaama ay xoolaha ugu badan ku nool yihiin abaartuna ay xoolaha hayso iyo dadka haya waxaan oran karnaa marka waa meesha ugu badan dhibtu ay ugu badan tahay waxaan ku soo aragnay Sanaag Bari oo aan u qaybinay 4,000 qoys aan arkaynay inay tahay wax bixin fiican ama wax qabad fiican laakiin aanay arrinta waxba ka dhaweyn maadaama safarkaygii soo gabagabeynay aan aragnay gobolka Sanaag Bari waxaan u baaqo diraynaa dhammaan cid kasta oo ay khusayso wax ka qabadka iyo gurmadka abaareed ee jira dadka muslimiinta ah ee hawsha ku soo deeqay waxa aan mar labaad xasuusinaynaa in sadaqadoodii ay gaadhay cidii ay ugu talagaleen walina hawshii ay taalo abaartii jiirarku ay jiraan maalmaha si adkaanayso xaaladda ugu dareena ay tahay biyihii oo meelo badan maatay gaabsi ah marka la dhamaaday ama hore maatay aan u dhamaa oday jaamac salaad oo ka mid ah odayada Sanaag Bari isaguna shirkaasi goobjoog ka ahaa ayaa wuxuu halkaasi uga mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland iyo guddida abaaraha ee deeqdan gaarsiiyay deegaanada Sanaag Bari waxaan leenahay walaalayaal ganacsatada iyo dadka muxsiniinta oo wax bixiya wixii aad soo bixiseen waan soo gaadheen ila dawladda wixii aad soo bixiseen waan soo gaadheen waxayna Soomaalidu ku maahmaahdaa hawl kama daalay wali waa ogadii duruuftu way adag tahay waan ka soo daraysaa haddii aan la soo qaboojin wixii aad noo soo dhigteen waad ku mahadsantihiin deena soo dadaalay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac ayaa isaguna hadallo kooban oo halkaasi ka yiri waxa ka mid ahaa shirkaas jireed waxa uu ku daaran yahay guddida abaaraha oo maanta halkan loogu timi inay ka warbixiyaan wixii ay soo qabteen waxa ay tageen Sanaag Bari waxa ay bixiyeen 3,100 qoys baran iyo nawaacigeeda inta ay hoos yimaada mid Ceerigaabana waxa ay ku bixiyeen 900 oo qoys totalka guud ama maxsuulka guud ee ay bixiyeen waxa uu yahay 4,000 oo qoys oo baahidu way farabadan tahay mana dhowaa 18 degmo ee gobolkani ka kooban yahay degmo maanta aan abaari lahayn ma jirto degmo waliba abaartu way saamaysay waxaan leeyahay nolol soo dhaqsada oo khayr Allah idsiiye u soo dedejiye wixii aad heshaan Yusuf Cabdi Xasan Caade magaalada Ceerigaabo.